maanta wixii laga oran lahaa waa la yiri wax dheeraado cusub ku dari maayo marka la soo dhumay hadalkeena dhiibana malaha inaan soo kooban xukun baa laga rabaa maanta waa maalintii ciidanka waa maalin qiimane aniga maanta waxaa ii sharafa ama xusuus wanaagsana maalintii ciidanka la aasaasayna inaan xeradaas soo deerka lahayn oo geed hoosteeda mararka qaar u baa ka noole aan ugu khudbadeynayay iyo ciidanku arraday yahay wasiirku uu lugeynayo ragii halkaan joogna waxba ka nool maanta halkaynu marayno waa wax Ilaahay ugu mahadiyo ugu farxaa Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inoo sii socdo horumarka hay'adaha dawladda iyo qaranka oo dhan hawsha booliisku qabto waa laga hadlay qodobadii laga hadlay waxaa laga tagay qodobba lagu darino nuuro hadda wuxuu booliisku nabadgelyada loo ilaaliyaa waa in ku seexanaa gaarkay hayaan way soo jeedaan shaqo kale hayaan oo ah xuquuqdeena ilaaliya qofna inaanu qof ka xadgudbin xuquuqda dastuurku qofka siiyay muwaadinka ayay booliisku ilaaliyaan oo toogu weeyna dadkuna waxay degaan oo nabadu timaada markuu qofku xuquuqdiisa helo taalo waa daraya horumarkooda iyo shanta sano dambe waxa ka qayb ah waxyaalaha booliiska kor u qaaday inamadii ka soo baxay shaqadii qaran oo ciidamada halka ka galeenba kor u qaaday oo ka dhex muuqda iyo dawladda meesha galay booliiska intaas ku dhaafay iyo xafladda ku ekeyd qodobka labaad waa laga hadlo waa doorashada qof walba waxa saaran nabadgelyadeeda bariyaha waxa bilaabay in sawirada ay leeyihiin xisbiyada qaranka iyo ururaduba in dadka qaarkii jeexjeexaan farafareeya maalin dhaweyto masalaha waxaa ka dhacday sawir uu leeyahay xisbiga wadani ayaa la dardarooliyey booliisku way soo qabteen raggii geystay laba qof bay ahaayeen min sanad iyo dheeraad baa lagu xukumay degdeg xalay magaalada Hargeysa waxaa ka dhacday in la dardarooliyo la jeexjeexay sawirro ay leeyihiin xisbiga wadani iyo ururka ka booliiska waxaa ka codsanaya qof kasta oo waxyaalaha ku kaca ama xisbi qaran waxyeela ama fitna abuuriyo wax tuura in degdeg loo soo qabto sharciga la mariyo waa taqura ee xaq ku imanaya waayo dadka haweenkii wax jeexjeexaya ama wax tuuraya su'aal baa la isweydiinaya ma Soomaaliland darbaa ma qof waalan baa wuxuu yahayba waa halka ay ka bilaabato dhibaatada xisbiyada waxa faraya dhammaantood iyo ururada tartamaya inay wacyigeliyaan oo ay ka adkaadaan taageerayaashooda waayo waa waqti dadka si aad xasaasiyad loo kiciyay oo social media laga kiciyay oo dadka xisbiyada ka hadla qaar badan ka kiciyeen oo dadka ayaa dhalinyarada iyo dadka caadifiinta halkaa ay marayso xasaasiyadooda waxa kaloo ku daraya qof wal oo Soomaaliland maanta oo codeynaya inuu isweydiiyo doorashadu muxuu doonaya ma wuxuu ka doonayaa qofku jecel yahay inuu noqdo madaxweyne oo la doorto ama xisbi ma wuxuu ka eegayaa si qabaliya oo u leeyahay waxa kala xidhiidh meel qoladayada soo baxdo ma wuxuu ka eegayaa in ay noqoto doorashadu cid la doortaa oo xisbi madaxweyne ma wuxuu ka fikirayaa qofkan warqada guriga in ay noqoto mid hore loogu sii wadaayo qarannimada Soomaaliland dhinaca walba difaaceeda nabadgelyadeeda اعتراف دور كذا اسكو هذا ضد كذا خدي أريد ورشة السابق في أروق فكريني وخسارة عدكيسو وايو ورشة الحمد عيسى هورو مرينتا قرن لمدة السومال محاشتي مر الله دونيا وحنا دونيا إن مر والبر الله يسحسابيه هالكير مرينا حاين وحرينا وقرنا تثرد ورشة أي هورنا وقاط وحنا بانفريا السومال عدك بحياة إلى تاك فكران عدكونا نبتقلية كلها حداد نبتقلية وقارسي ويد ورشة أو تقص كاربرتو خسارة كنت السومال تاسوا يقدر دارا
cid kasta oo codaynaysa dadka tartamaya ama ruuxaada ama madaxweynaha waajib baa saaran haddii aanad aragtida Somaliland wax ku eegin marka hore oo aanad tusaale af iyo adin iyo fikir Somaliland dhaba oo Somaliland waxay doonaysaa u socdaan lahayn khasaarada wadda gelinaysaa ugu waayo ummadda inta leeg waxaad ku hogaaminaysaa waxa koow oo wadeeqa oo cod kugu jira in la ilaaliyo qaranimada Soomaaliya oo ku dhisatay dhiig iyo naf iyo waqti aan cidla qiyaas karin marka taa wixii ka hooseeya qofka ka fikiro khasaarada dalka uu keenaysa waxaan ka codsanayaa intaa uu adkaysto meel kasta ay joogaanba mar labaad hay'adaha amniga waxaan ka codsanayaa oo farayaa xalay ciddii wax samaysay ee bahalaha taabatay inay soo qabtaan iyo kuwa meel kasta ay joogaan dhaqaajiya inay iska hor keenaan dadka tartamaya ilaahay waxaa kala jeedaya inay doorashadooda ugu dhacdo si nabad ah waxaan ilaahay kala jeedaya inay horumar iyo wanaag iyo jacayl inoo soo kordhiso ilaahay waxaan ka baryayaa inuu horumar Somaliland ugu sii horaado oo horumariyo oo aanay doorashadaasi xaraf iyo qas iyo wax Somaliland dib celiya aanay keenin cadow badan baan leedahay horumarkeena waa la neceb yahay cadow uu badan yahay Somaliland cadowga in dhahooda dhaan ku eegto iyadoo way isku eegto wassalaamu calaykum